adeegyada aasaasiga ah ee dawladuhu ay u qabtaan dadkooda waxaa ka mid ah waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, dhismaha wadooyinka, dekedaha iyo garoomada. adeegyadaas waxay dawladdu qabataa marka ay dadku canshuuro bixiyaan. iyadoo ay jirto inaan dadku wali canshuur bixin ayay dawladda Soomaaliya ku dadaashay inay bixiso adeegyada lagama maarmaanka ah qaarkood. dhanka waxbarashada waxay dawladdu suuro gelisay in dib loo furo jaamacaddii ummadda oo bixisa waxbarasho lacag la'aan ah. wasaaradda waxbarashada dalka ayaa dhowrkii sano ee tagay qaaday imtixaanada midaysan ee dhammaan dugsiyada dalka. dhanka caafimaadka waxaa la dhisay dhowr isbitaal oo bixiya adeegyo caafimaad oo aad u jaban, kuwaas oo dawladda ay gacan ka siiyeen dalalka qaar sida Turkiga iyo Imaaraadka Carabta, laakiin isbitaaladan wali kuma filna inay daboolaan baahida caafimaad ee dadka Soomaaliyeed ay qabaan. dhanka shaqo abuurka dawladda ayaa bixisa shaqada ugu badan ee dalka ka jirta. dhinaca ammaanka dawladdu waxay dadaal badan gelisay sidii loo hagaajin lahaa ammaanka dalka iyadoo la xoojinayo hay'adaha arrintaasi aasaaska u ah sida booliska, xabsiga dhexe iyo nidaamka garsoorka. dhanka kaabayaasha dawladdu waxay dhistay dekada iyo garoonka oo horumar uu ka jiro. sidoo kale waxaa la dhisay jidad dhowr ah oo halbowlo u ah isku socodka caasimadda. kuwa kale ayaa hadda dhismo ku socdaa, walina kuma filna oo waxaa loo baahan yahay in jidad badan la dhiso caasimadda iyo gobollada kala duwan ee dalka. dhanka isgaarsiinta markii ugu horeysay ayay baarlamaanka dalku ansixiyeen, madaxweynuhuna saxiixay sharciga isgaarsiinta dalka. sidoo kale waxaa shaqeeya boostada dalka. gurmadka degdega ah dawladdu waxay abuurtay oo diyaarisay gaadiid loogu talagalay dabdamiska iyo gurmadka degdega ah markay xaalado dab ama shilal dhacaan. hase yeeshee adeegyada la hayo aad ayay uga hooseeyaan intii loo baahnaa. xaqiiqooyin qaraar inta badan dadka qaba dhaawacyada iyo xanuunada culus waxay dawo u aadaan dalka dibaddiisa maadaama aysan adeeg caafimaad ka heli karin dalkooda. heerka dhimashada carruurta 5 sano ka yar aad ayuu u sarreeyaa. 2 ilaa 3 isbitaal oo guud ayaa qiimo jaban ku qaabila dadka. 90% isbitaalada dalku waa kuwa gaar loo leeyahay. isbitaaladeennu marka ay dhacaan musiibooyinka iyo xaaladaha degdega ah ma xamili karaan oo adeegista dadka ku soo jabaya. sidoo kale isbitaaladeennu ma haystaan dawooyin iyo qalab ku filan oo ay ku dabiibaan bukaanada la geeyo. 37.8% oo kaliya ayaa dadkeenna wax qori karta waxna aqrin karta. in ka yar 30% ayaa carruurteenna fursad u hela inay iskuul dhigtaan. in ka badan 98% iskuullada shaqeeya waa kuwa gaar loo leeyahay oo lacaga ka qaada ardayda dhigata. sidoo kale dhammaan jaamacadaha wada shaqeeya waa wada barayfad marka laga reebo jaamacadda ummadda. si dawladdu awood ugu yeelato bixinta adeegyadaas kala dhiman ee bulshadu u baahan tahay ayay laga maarmaan tahay in bulshadu ay canshuur bixiyaan.